halkan ayuu joogaa maalin kasta wakhtiga salaada casar. Marka uu tukado salaada casar kadib ayaana uu fadhiistaa afaafka hore ee masjidkan oo ah kan ugu dhow xaafadiisa. Waxaa caado u ah inuu dhagaysto idaacadda, hase ahaatee sida dadka intiisa badan ay sameeyaan, kama dhagaysto idaacadda wararka iyo barnaamijyada ku saabsan dhacdooyinka dunida. Isagu waa uu ka duwan yahay oo intaas midna ma dhagaysto. Maalintii xilliyadan oo kale muddo saacad barhkeed ah ayaana uu dhagaystaa idaacadda. Kani waa Aw Maxamed Ibraahim Ismaaciil oo ah oday da'diisu ay tahay 90 jir. Waxa uu ku nool yahay magaalada Hargeysa. Idaacadda Radio Hargeysa ayuu ka bartaa oo uu ka marsadaa tafsiirka Qur'aanka Kariimka. Waxaana uu ka dhameeyay tafsiirka ku dhowaad 10 jeer, isagoo muddo ka badan 15 sano tafsiirka ka baranayay idaacadda. Aw Maxamed ayaa waxa uu inta badan sitaa rikoor uu ka dhagaysto tafsiirka Qur'aanka Kariimka ee idaacadda, isagoo tafsiirka idaacadda Radio Hargeysa ka marsada 2 waqti oo ka mid ah xilliyada uu tafsiirku soo galo idaacadda. Aw Maxamed ayaa waxa uu dhalinyarada iyo dadka kaleba ugu baaqay in ay ku dadaalaan barashada cilmiga, gaar ahaan cilmiga diiniga ah. Ilaahay baa wuxuu sababta rasuulka loogu soo diray waxa weeye in laga badbaadiyo musiibo iyo balaayo iyo cadaab caam ah oo ku soo dhici lahaa, iyo in iyagu marmarsiihii ay oran lahaayeen Ilaahay uma noo soo dirtay rasuul kiina uu meesha ka baxo. Marka Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam diritaankan Ilaahay u soo diray labada arrimood waa ka dawo. Inta adduunyada joogtaan waxana barta waxana ummadda bara ayaan anagu leen taasaan imikana aanu hadiya goor ku ilhaamina war kutubta barta kutubta barta oo dadka xaq u sheeg oo waxa keenaya wixii xaraanana wixii ay dadku ummad wax ka hado wixii xalaalana sideeda ayadana waa xalaalo wala waxana waa xumaan waxana wixii xaraan Ilaahay ka nahiyay way ka reebanta hadaba dhaqanka diinta waa in lagu dhaqmaa laakiin hadda dhaqmo inta barata aad ku dhaqmi weydo meena masiibo ahaan dad baa aaminsan cilmiga waa laga gaboobayo ma jirto ka gaboobayna waa naga imka wadna ilaa yaraanta sebi baan kolkaan galbeed qabanay macallin sheekhaasho 7 gole kiciyay yaa noo macallina 8 maantana dadaydu waa 9. Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir oo ah sheekha tafsiirka Qur'aanka Kariimka ka akhriya idaacadda ayaa isaguna waxa uu tilmaamay in Aw Maxamed uu tusaale u yahay dhalinyarada da'yarta isla markaana loo baahan yahay in aan laga caajisin barashada cilmiga, isagoo sheekhu sheegay in qofka barta Qur'aanka Kariimku uu maalinta qiyaamaha u shafeeco qaadi doono sida ku xusan axaadiista rasuulkeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. uu ku amaanan yahay Aw Maxamed tusaalena uu u mudan yahay ama uu ku habboon yahay inay ku daydaan odayaashu oo ay ku daydaan dhalinyaradu oo ay ku daydaan ragga iyo dumarka intaba. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay dadka qofka ugu khayr badan wuxuu khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. waxa idinku khayr badan ummadda muslimka hadaatihiin ummadda islaamka qofka Qur'aanka baranaya iyo ka baraya ama ka baranaya ama baraya hadduu labadaba isku sii darana uu ka wanaagsan yahay. marka Qur'aankii oo erayadiisi ama sidii loo akhriyay la bartana way tahay ama la baro iyadoo macnihiisi la barto oo la barana way tahay. marka mar haddii la yiri qofka ugu khayr badan ummadan inuu qofnaba ka qada maaha qof waliba waa inuu isku dayaa mar haddii la yiri waa ka ugu khayr badan waa qofka Qur'aanka baranaya ama baraya waa inuu qof waliba isku dayaa inaanu ka qadin amaanta iyada. arinta kale runtii jirtaa waxa weeye tusaale u yahay Aw Maxamed da'yarta cilmigu had iyo jeer wuxuu ku sii fiican yahay barashadiisu qofka inta muruqyadiisu ay xoog leeyihiin ee tamartiisu ay badan tahay ee xifdigiisu uu wanaagsan yahay oo waxa la yiraahdo al-ilmu fi sigari kan naqshi ala al-hajar. cilmiga oo lagu barto yaraanta wuxuu ka dhigay dhagax wax lagu qoray dhagaxa marka wax lagu qoro macnaheedu waxa weeye inaanu baaba'ayn taa waxa markaa ka duwan qofkii weynaa uu ka duwan yahay hami badan buu xambaarsan yahay maskaxdiisii hirarbaas muujadaasa u marayo masaxaya. marka daayarta waxaynu leenahay ku mashquulsan tiknoolajiyada ku mashquulsan agabka wax lagu baahiyo iyo social media ku mashquulsan warbaahinta
inay dhinaca fiican u jeedsadaan. haddaba sidee u arkaan howlwadeenada idaacadda radio Hargeysa sheekada ku saabsan ninkan waayeelka ah ee Aw Maxamed Cabdilaahi Shabeel waa maamulaha idaacadda Qur'aanka Kariimka ee radio Hargeysa waxa uu ka warbixinayaa dadaalka ay ka idaacad ahaan ugu jiraan baahinta tafsiirka Qur'aanka Kariimka ah iyo sida ay u arkaan sheekada ninkan odayga ah ee Aw Maxamed. barnaamijka tafsiirka Qur'aanka Kariimka wuxuu ka mid yahay barnaamijyada idaacadda Qur'aanka Kariimka ka baxa runtii uguna dhageysiga badan. waxay nooga dhigan tahay inuu hirgalay midhihii aanu ka doonaynay baahinta barnaamijkani. barnaamijkan waxaa ku taxan dad ayni kala duwan, waayeel iyo dhalinyaraba leh, rag iyo dumar. runtii qaarkood ama badankooda ay kaga maarmeen inay masaajido iyo goobo gaaro waxbarasheed ay u tagaan barashada tafsiirka. waxaa ka kaafiday idaacadda Qur'aanka oo toddobaadkii maalin kasta 2 goor u soo deysa barnaamijka casharka tafsiirka Qur'aanka Kariimka. halkan waa idaacadda Qur'aanka Kariimka ee radio Hargeysa. dad badan ayaa iyagoo guryahooda jooga iyo waliba goobtooda shaqo idaacaddan ka barta Qur'aanka gaar ahaan tafsiirka Qur'aanka Kariimka halka qaarkoodna ay la dhameysteenba tafsiirka sanado badan sida Aw Maxamed oo ah oday 90 jir ah oo aad daawanayseen sheekadiisa. Khalid Fodadi, Goobjoog, Hargeysa.